marka darsiga waxaa ku soo gabagabaynaya qisadii shala dhacday iyo sida looga falka celiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryayaa aabbo walba iyo hooyo walba awlaaddooda inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo celiyo inuu rabbi gacmahooda ku soo celiyo midda marka ku saabsan warkaygii xalay ee waxaa weeye ku jirtay waxba faahfaahin karo ayaa waxaa loo fasirtoo la yidhi shiikha waa la cabsi geliyey waxaan marka rabaa inaan idhaahdo anigu bini aadam ma ka baqayo waxaan ka baqayaa waa allah subxaanahu wa tacaala rabbi subxaanahu wa tacaala dartii ayaan dacwadan u galay bini aadam inay wax isiiyaan amase waxa waye bini aadam aan uga baqo waxa uma ana gelin wuxuu rabbi casa wajalla odhanayaa falaa takhshaw nnaasi wakshawni walaa tashtaruu biaayaati tamanan qaliilan aniga iga cabsada dadka waxbaha ka baqinina waxbahaya waa allah jalla wacala aniga iga cabsada cabsi marka ilaahay subxaanahu wa tacaala leh waxa markaan ogahay ama aan garanayo axad muslima in dhibaata ugu jirto inaan ka aamuso xaaraan weeye qisada marka ku saabsan gabadhayda ku dhacday oo waxaa weeye ah in la watay ah waxay ku dhacday waxaa weeye dad kaleo aniga iga duwan oo iyaguba isoo wacayba qof kalena way ku dhici kartaa berrito marka inaan ka warramo oo aan sidaa duuduubka uga tegin ayaan go'aansaday oo waxaa weeye darsiga aan ku soo gebagabeeyo marka gabadha waxaa weeyaan la yidhaha iqra mahadguray la yidhahdo anigu aan dhalay da'deedu horta waa 12 jir caqligoodu wuxuu ahaa mid waxaa weeye nadiif ah markii marka cidda ugu dambayday biyihii daadinaysay markii biyihii daadiday sida iyaduba ay noo sheegtay islaan waxaa weeye wadatay xijaab iyo nashareer ayaa salaantay gabadhii markay salaantay gabadhii waxay tidhi aabba waan raacay ilaa ay waxaa weeyaan gabadhii la tagto xaafad aad u dheer markay waxaa weye xaafadda dhex marsin ugu dambeeya deegaanka aan degannahay xaafad ugu dambayda markay la mari ayay gabadhii ooyday markay gabadhii ooyday islaantii waxay samayday intay gabadhii jardii fariisiday ayay ka tagtay gabadhii islaantii way cabsatayoo ducadii aad ducaydeen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kulligu xihay markaasay islaantii tab waxaa weeyaan cabsatay yaan islaan dhihine laakiin waxaa weeye warkeennaaba islaam isaga jirtaaba soomaaliga dumarka ee islaam waa isugu mid marka intay waxaa weeye qalqashay ay gabadhii intay meel fariisiday ayay ka tagtay ilaahay subxaanahu wa tacaala wax u soo diray waxaa weeye shiikh la yidhahdo waxaa weeyaan sheekh xuseen la yidhaahdo oo xaafaddaa degganaa oo kadib aan isbarannay laakiin isagu way garanayeen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo diray inuu gabadhii qabto iyadoo ooyeyda markaana waxaa weeyaan tabiya siiyo oo gabadhii waraysa maago laakiin gabadhii wax wara u ka waayo kadibna waxaa weeye warkii la wareejinayey oo sooshiyaalka marayey ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala bulshadii xaafadda degganayd u geeyeen sidaa ayuuna igu soo wacay midda marka ku saabsan oo waxaa weeye duuduubka warkayga horta waa intaa ama waxaa weeye muslimiinta waxaa lagu garanayaa kuwa aan wax isu shaaqalin oo waxaa weeye god aan isu tilmaamin wuxuu allah rasuulkiisu odhanaya sala allahu alayh wasalam almuslimu aqulmuslim laa yadlimuhu walaa yuslimhu axadka muslimka ah kan kale walaalkii weeye ma dulmiyo cadowna uma gacan geliyo kuwa marka ilmaha qabsanaya oo waxaa weeyaan cadow u gacan gelinaya muslimiin ma ahan xaqiiq weeye taasu maxaa yeele xadiidka wuxuu rasuulka la odhanayaa almuslimu aqulmuslim laa yadlimuhu walaa yuslimhu muslimkan kale walaalkii weeye ma dulmiyo cadowna uma gacan geliyo midda waxaa weeyaan ah marka ilmaha la qabsanayo ujeedka la gelayaa waxay tahay in lagu cuuriyaamiyo diinta islaamka in lagu cuuriyaamiyo cilmiga maanta la baranayo dugsi in la aadi waayo oo ilmaha guriga lagu celiyo si ummaddu u noqoto juhalo waxba aana gelin oo say doonaan laga yeelanayo marka ilmaha yaan dugsiyada laga celinin way koox loo diro waa in hooyooyinka ay geeyaan waa in aabbayaashu ay ka warqabaan waa in la iscaawiyo oo axad walboo tabanaya inuu awlaad la'yahay sida aniga la ii caawiyey hadda waxay soo wacay waxaa weeyaan gabdho odhanaya ilmaha naga maqan weliba gabdho u badan odhanaya gabdho naga maqan mid waxay tiri waxa iga maqan 12 jir midna waxay tiri waxa iga maqan 12 jir marka iyaguna ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo celiyo muslimiintana waxaa lagu garanayaa kuwa iscaawiya waxuu rasuulka sala allahu alayh wasalam odhanayaa almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashudduhu bacduhu bacdaa mu'minku kan kala dhisba u yahay way istaageera iyagaa isjecel haye rasuulka allah tilmaamaya sala alla alay slam wuxuu kaloo yidhi
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد مؤمن توحى لغو قرنيا حق اسكو دمرتا حق قلقعيلك واسيده هالجر وكله حق قلقعيلك جعيلك احترامك وعو دمرتا واسيده هالجر وكله ويه حنونك قف كستا waa taabanaya marka waxa weeyaan awlaadan qaarna la oranayo waa la kufsadaa ila waxa weeyaan hadda laftigeeda maanta waxa la sheegayaba cunug lix jir ah oo waxa weeye inta la farxumeeyay waa wiil waliba inta la farxumeeyay isbitaalka nagu dhagan la keenay marka ma waxaan oo dhan isku soo wada duub waxa lagala jeedaa in dhaqankeena lagu cayaaro oo inagana la fasahaadiyo oo diinteena meel looga dhaco annaguna waxaan nahay muslimiinna waxa weeye waxa lagu garanayaa kuwa waxa weeyaan wanaagga isugu gaabsiya xumaanta markay tema isu heliya marka mawduuca maadaama aan daalanahay ayaan raba inaan faahfaahin inta ka sii badan gelin midaasna waxa igu riixaya oo aad u batay in la yiraahdo sheekhu macabsan cabsida waxa weeye inaan ahad muslim u dhibaato geliyo lianna rasuulka allah wuxuu lahaa sallallahu alayhi wasallam المسلم أقوى المسلم لا يظلم ولا يخذل له أحد كمسلم كان كلام ولا الكيوي مسلم كما ظلميه من هوجي مال إدبات وجدت وشيء حتى قرنا يمركه مال وحوي أحد مسلمة أي دبات وجدت وأنا كاذب وأنا كان مسلم تاثنا إلهي سبحانه وتعالى كل هذه قرينها أنت هذا الكيو عرف قويه هي إسقى بغلال دوني أنت عرف قويه هي وعد إلهي سبحانه وتعالى كل هذه قرينها إنها نبي أقبخين oo waxa way ahad muslima dibkiisa aan ka warramo sida waxa way maantaba midka jooga Hargeyso iyo midka jooga Lascaanood midka Muqdisho jooga iyo midka Kismaayo jooga mid kasta meel walba uu joogo isoo wacay isagoo la kurbanaya xanuunkan yahay sidaas marka ula kurban anaguna qofka soo xanuunku gaaro saasana waxa uu garab istaagaya marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weydiisanaya awlaadaha noo xifdiyo awlaada Ilaahay noo xifdiyo imtixaan way awlaadu dugsiyada waxba yaa laga celinin waxa la rabaa in dugsiga laga celiyo oo la waayo ilmo quraan barta oo dugsi aan la waayo waxba awlaada yaa quraanka laga celinin